xasuustii geerida ayaa dadkii ku yaraatay qabrigii xasuustiisii iyo dhimashadii baa ku yaraaday adduunyadii baa u macaanaatay mashquulkiisii baa qofkii batay markaasaa waxaa laga yaabaa intuu ilaahay xasuusan yahay oo qalbigiisu ilaahay u khushuucahayo inay noqotay wax aad iyo aad u yaraan badan ilaahay wuxuu leeyahay dadka waxa u soo dhawaaday xisaabtoodii la xisaabin lahaa ayaguna waxay ku sugan yihiin qaflad ayay ku sugan yihiin waxa ilaahay ku tilmaamay gaalada inay yihiin dad adduunyada yaqaana waxna ka garanahaya laakiin ay yihiin aakhira moog yaclamuuna ظaahiran min alxayaati الdunya wahum macaani alaakhirati hum gaafiluun sifadaas gaaladaa leh marka qofku inuu aakhiro moogaado habeen iyo maalin adduunyo ku fakarayo xooggii iyo juhdigii ku bixinahayo mashquul uu ku yahay waa wasfi ilaahay ku tilmaamaya tilmaan gaalada ilaahay ku tilmaamay ilaahay wuxuu noo sheegay subxaanahu wa tacaala in badan inay moog yihiin aayadaha ilaahay wa inna kaiira min annaasi can aayaatina lagaafiluun nebiga waa laga reebay inuu ka mid noqdo dadka gaafiliinta ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala moog iyo dikriga iyo khayrka iyo wanaagga ilaahay wuxuu ku leeyahay walaa takun min algaafiliin gaafiliinta ha ka mid noqonin nebiyullaahi moxamedow aayad kale walaa tutic man agfalnaa qalbahu can dikrina waatabaca hawaah wakaana amruhu furta raacin qof dikriga ilaahay qalbigiisa laga saaray oo mid moog laga dhigay hawadiisana raacay marnaba ha raacin iska ilaali cuquubo weeyaan haddaa aragtid asbuucyo iyo maalmo ku soo maray oo xasuustii aakhira ay kugu yaraatay oo dikriga ilaahay kugu yaraaday oo majaalisil cilmiga aad ka maqan tahay waa cuquubo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan uga toobadkeen oo ilaahay u noqo ilaahay wuxuu ku tilmaamay gaaladii ulaa'ika aladiina tabaca allahu calaa quluubihim wa samcihim wa absaarihim wa ulaa'ika hum alghaafiluun qalbigoodii baa ilaahay daboolay maqalkoodii baa ilaahay daboolay araggoodii baa ilaahay xiray quluubtoodii baa ilaahay daboolay subxaanahu wa tacaala waxaana ilaahay ku tilmaamay inay yihiin dad gaafiliin ah oo ilaahay moog subxaanahu wa tacaala haddii qofku gaflad ku dhaco oo xasuustii aakhira aysan qalbigiisa ku taagnayn markiiba wuxuu u ordahayaa waxa dhaldhalaalka ah oo u muuqda ayuu markiiba ku mashquulahayaa istaagi mahayo imaa inuu qalbigu ku xiran yahay ilaahay oo dikri ilaahay iyo khayr iyo wanaag uu ku mashquulshan yahay wa imaa inuu kugu mashquulinahayo adduunyo iyo tatabuceedii iyo raaraacitaankeedii iyo gaaritaankeedii iyo amalkeeda dheer ayaa labadaas mid un weeyaan asbaabaha keena qofku inay ku yaraato xasuusta aakhiro waxaa ka mid ah qofku inuunan qubuuraha ku cibro qaadan geerida inuusan ku cibro qaadan aakhiro ilaahay waxa uu nimco diyaariyey xasuusteedu inay ku yaraato ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay alhaakum الtakaaثur xataa zurtum اlmaqaabir waxaan idin mashquuliyey wax kala badsi iyo tartankaas iyo faankaas iyo adduunyadaa loolankeeda ilaa qubuuraha aa ka booqateen macnaheedu waxa weeyaan adduunyada jacaylkeedii iyo maxabbadeedii ayaa waxay idinka mashquulisay can dalabi alaakhira dalbitaankii aakhiro aad dalbayseen iyo ridihii ilaahay raadintaa raadinayseen arrinkaas waa ka mashquulsheen ilaa geeridii idinku timid oo qubuurihii aad booqateen oo ahalkeeda aad ka mid noqoteen kullu nafsin daa'iqatu lmowt xaqiiqo waxa ah walaalayaal qof kasta inuu maalin tagahayo saasaa loo socdaa oo loo gurmayaa wax ku cibro qaadanaya aad bay u yaraadeen nebigu wuxuu yidhi calayhi الصalaaةu wasalaam zuuruu اlqubuur fainaha tudakirukum اlآakhira war qubuurta booqda oo ziyaarta waxay idin xasuusinaysaa aakhiro ayaad ku xasuusanaysaan oo idin xasuusinaysaade qubuuraha booqda bal nebigu wuxuu ummaddiisa uu ku booriyey inay xasuusta geerida ay badiyaan akiruu min dikri hadimi ladaat
وحابدسان متك معانيالك قوينيا حسوستي سبدية يعني الموت مركات كل حساب تنتد بري مقاريسا عاوة مقاريسا أسبوع عن من نولانيسا الدنيا دا دنبا كوسو يرانيسا هرتا دا وحا كأركيسا قيريدي يا قبريكي يا وحا كاهوريا محايا لقف كان وحا سوغا هيا مانتا النول وهل كان تشوغا الدنيا دا تشوغا وحا سوغا هيا الموت وسكراته موت كي سكرات كيسي وحا سوغا هيا قبريكي يا مقدقيسي وحا سوغا هيا نفخيكي يا سوصارتانكي قيام الله سوصا بحينا هيا وحا سوغا هيا جدكي سراتك أو مرة هيا وحا سوغا هيا حسابتي وحا سوغا هيا إما إلى الجنة وإما إلى النار أحوال علص أيا قفك سوغيس وإنه كل حساب تمامرك سيدو نفتي سأبد بادين لها وإلهي عذابك سأبد بادين لها ونقضى قف مر والبعض حسوست آخرة يكون انتهي نبي نوح يري عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا داد أغان لهيدين وحا آن أغهي إن يرباد قسل لهيدين وحبذن واد بوي لهيدين حيل النبي قد شندينا واركي نارتنا واركي النبي عليه الصلاة والسلام لبدا بوالتوس وما تلذذتم بالنساء على الفرشات هوين كان فراشيدا كلما أين راحيستين ولا خرجتم إلى السعودات بنانك أصبح لهيدين تجأرون إلى الله إذنكو إلهي أعبنا هيا وعبادة هيا وأرققح هيا بنانا صور والله هيدين معناها النبي وحو صورين يا عليه الصلاة والسلام سيدا آن موغنهي وغفلت دا أغسوغنهي يا حقيقة النبي صواركي وآن رميسانهي يا دقن كانوا إنو سإسلحين إلي تهي إن قريها لغا عرضو بنانا الله عرضو إلهي لما قنقل سبحانه وتعالى أهرنتا إيادا أهي قفك وحي كب حين يسا وحويان حسوستيسا آخر حسوستي إنو بتصدو إنو حقوق يا مظالم تلقول لي يا إسك عليو إسك رديو إنو وحو لبحي كرا لبحو إنو عبادات كي خير ككد دالو إنو مصالح ذا يوناق كشقايو إنو إصلاح ذات البين كشقايو أي أرهنكا إساقا يكب حنايو نبينا عليه الصلاة والسلام وحو أها حبين إيمال من أمدي سكبر أروتشنا هيا وحسوسنا هيا آخره إلى صحابة أي نقدين وحا يكنوا كفكريان أو كليئة الدنيا إن الصهيدة سيرتها مالك أي كقادنيان أي كجا مشغولان أنت كلا جهد جود أي كدجان جهد آخرة وتشيله أيوة الدنيا كشوجو أو نول أي قلب جود آخرة وجوري قلب جود يفكر كود يهم جود وحشرة آخرة أيوة نول بي الدنيا كشوجان مركز آخرة قلب جود وجوري أنت يصير الدنيا كده يقار سيدا سيأهاي وحكم إذا أسبابها قفك كوكين هي إنه موجود خير كيوناك آخر حسوس تلقوا يرعتو الانقطاع عن مجالس الذكر والعلم مجالس علمك هي حسك إلهي لو حصي هي ذكرك قفك إنه كجوه ولا جوايو قفك عسى الشيطان بوقع عن قلم مركز هذه قفك ومجالس ذكرك هي علمك وكحريها ونفتي سكوح بسيو وعلمه سكينيو وأهلك سكينيو وكد دالهيو هبين والبخير يوناك بقلبك سكون معايو وكفائدة سنة ولذلك ابن القيم محيي على قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن الله انت قفك ذكرك إلهي حسكي سؤكيريه أما أكجو أيها أما غفلتك جسوجيه بو إلهي كفريه قفك كذكر بدنيه حسك إلهي كبديه كعبادة بدن إلهي وكجدوي قفك كيريه هنا وكجفريه مركز ابن القيم يقول لي مركله إن مجالس الذكر مجالس الملائكة مجالستا يمالها علمك يذكر لغوها يوم ومجالس ملائكة ومجالس اللهو والغفلة مجالس الشياطين مالها لغوها هي غفلتها هي اللهو يا عيارت ومجالس الشياطين فليختر العبد أعجبها إليه وأولاها به أضونك هالدورت مدي عجب جلس أسوي هالدورت فإنه مع أهله في الدنيا والآخرة عدة أو دورتي لفريس جدا أيو الدنيا ذا معي جودية هي آخرنا معي جودية ذاتك صالحين تا
يا أهل خيرك إنه لفر يستدورته آخرنا إلهي ما شيء مرام بمرناي قفكي دتك حنحن إنه لهوجا يا عيارته دلدلك لقعت الدورتنا ما شيء مران الدنيا ذا أسوء لفر يست آخرنا لا مرسيناي مرك قفكو هالدورته مدي وعجب جلس أسوي هالدورته مجالستا خيرك ولا ليال مرك إنا كدي دالنا وأسبابها إنه سهلة هي إن الخير كي وناقة كحرنانه إلهينا أن ويدي سنة خاتمة إنه نقدله وحاكمت حضور كجماعات وشلادها الشنطة قفكو إنه نقولي كتوكن كدي داله إنه عمرو بيتك إلهي وحلون ناديني ولو أدمي ولو أقمي ومساجد الله لسي وأدقع إن النفط هذا كنتد وكتوكتد المها قاعد كتربييسد وقفكم مرك إنه كعادة يشر وقلبه معلق بالمساجد ورجل قلبه معلق بالمساجد قلبي قاعد إنه نقض من مساجد كحرم وقلبي سوية هاي ميلان أقبل من صلاة كستمرك لجاره من مساجد كأهلوا بحياه أرين كاسي وحو كاغا كالمين يكو كالمين يكو فضولين يا إن حسك إلهي مرول بقى تكون حجرت بدبادة الدنيا ده أتكون بدبادة آخرنا أتكون بدبادة يا خير كإسقعة وإن لو قد داله